waxaana fiican dadku intii xaafad iyo deegaan la isku xidhmi lahaa in dadku ay yeeshaan identities kala oo mideeya inta badanna xadaarada iyo baxnimada iyo horumarku wuxuu ku jira marka dadku ay social clubs yeeshaan ay dadku ama ideologies ugu xidhmaan ama ay yeeshaan identities kale oo mideeya oo aan ahayn tii hore ee dhaqanka ee mushkilada badan inta badan inagu ahayd aan ahayn marka waxaan aad ugu bogaadinayaa oo aan xoojinayaa in la isku xidhnaado in la iska warhayo in dhammaan akhyaarta waxa laga yaabaa waxaynu ka hadlaynaa waa 20 sano ka hor xilliga ardaydii ugu horeysay inaga tagtay Uganda ee nambara oo arday scholarship ku tagtay oo waqtiga tagtay maanta 20 sano ayaa laga joogay dowladda gudoomiyaha 2007 ilaa 2008 ana 2008 ilaa 2009 marka maanta iyadoo xilliga meel yar loo oran jiray abagaadhan oo halkan imka hoolka laga dhisay weyna ayaan ku shiri jirnay oo sawiraan ayaan berigaan ka qaadnay anagoo ilaa 8 qof 9 qof ayaan halka markii koobaad ururka ku aasaasay maantana haddii intaas u aqoon-yahana oo habliyo wiilal leh ay ka soo aflaxeen Uganda farxad weyn ayay noo tahay waxaana fiican dadku intii xaafad iyo deegaan la isku xidhmi lahaa in dadku ay yeeshaan identities kala oo mideeya inta badanna xadaarada iyo baxnimada iyo horumarku wuxuu ku jira marka dadku ay social clubs yeeshaan ay dadku ama ideologies ugu xidhmaan ama ay yeeshaan identities kale oo mideeya oo aan ahayn tii hore ee dhaqanka ee mushkilada badan inta badan inagu ahayd aan ahayn marka waxaan aad ugu bogaadinayaa oo aan xoojinayaa in la isku xidhnaado in la iska warhayo in dhammaan akhyaarta waxa laga yaabaa waxaynu ka hadlaynaa waa 20 sano ka hor xilliga ardaydii ugu horeysay inaga tagtay Uganda ee nambara oo arday scholarship ku tagtay oo waqtiga tagtay maanta 20 sano ayaa laga joogay marka 20 sano jiilalkii iyo dadkii soo baxay waxa laga yaabaa maanta deyn ay ku qof ay ka badan tahay inta Uganda wax ku soo bartay Soomaaliland joogta marka in intaas isku xidhnaato oo xataa haday dadku soo gaari waayeen waa balin walba intii ay chabatida iyo beanista soo wada cuneen inay gaar isku sii wada xidhnaadaan aad bay fiican tahay waqtigoo kooban waxaan aad ugu mahadnaqayaa tiimkii soo qaban qaabiyay xafladda quruxda badan iyo afurkan wanaagsan inoo diyaariyay iyagana ilaahay haka jazaa'is iyo madasha fiican ee bilan inoo diyaariyeen aad u mahadsantihiin shirkadda Telesom waxay qiimo dhibis aad u ballaaran kugu samaysay adeegyada ay bixiso qaar ka mid ah inta lagu jiro bisha Ramadaan ee barakeysan waxa qiimo dhimis lagu sameeyay gaaraysa 5% gelinta internetka dheereeya ee Telesom Fiber waxa qiimo dhimis lagu sameeyay 50% gaaraysa adeega Dambal Plus ee xayisiinta ganacsiyada waxa sidoo kale qiimo dhimis lagu sameeyay gaaraysa 50% gelinta adeega ila soco